aniyaa kumanaan qofood kurbey kaafeyday kaalamaan aniyaa kumanaan qofood kurbey kaafeyday kaalamaan أرسيهايتن نبدا عنا أوكي فيلنا ما هايته نبدا ناس لنوغلي لبدا ناس لنوغلي دايبada أريد شمال ناس لنوغا يالتا warnaba idin waramo Soomaalidu waxay baratay oo weecsan baa jira warwareegid kama daasho iyo waala gacandow inkastoo shil weyn loo qabto xaajo wadareeda inkastoo wadaad culumo iyo wabar loo yeero waaweynkiyo wax garadkuna kulmiya waaya aragiiba inkastoo wax qayb iyo wanaag lagu walaaloobo woodkana la galo waayahan la isma waafaqo waqtigan khilaafaadku waa lagama waayaan waxaadna barteen waxaadna bideena ka weyn lama yaabo mooshinaa la sheego hayaahe waxba iga baxay inay murmeen madaxda guud mooshiinku maw marqaatiya horta mooyahanan idin kula yaabeen kashi lagu tumi lahay intay jirtaa mooshin baa la keenay warwal noo warsada gabalkuuni gudoomiye ee walaagisah ay walaay galad asiin sheegno war meeli liga filaay aadaga kooy gudoomiye baarlamaanka maday mursal dawladii arbay waa lagu kalsoon yahay lahayti oo master jawaari lika bedeli widay warsadoona langareesoona langaade walaari liga kalsoon unika kalsoon hadii reer koonfur galbeed ana war ma gudoomiye mursal isu sharaxay madaxweynaha koonfur galbeed muwaalanta adiga wixii dan ku jirta intiidaysa malaha meel ama ka maqnaa ama ka muuqaal yiri war walag ding ma gorda warka oo dhurda gudoomiyahana u suba mad mursal gudoomiye ka horeeyay jawaari gudoomiye kale ka sii horeeyay eedan midooba kulmeena wada hadaleen may ereena ku turukutaanku iyona iska dabareejisku koonfur galbeed isan halagaleen wal una siinka weelnay geesinka weelnay hamiintiinka weelnayna ma ciidanku santaha dhoobtan meelisan fadaasan jeysada koonfur galbeed meelman ee ereen war gudoomiyaha baarlamaanka maanta waraaq cad buu soo saaray walma warqad madoobow soo saari jiriye wuxuu yiri guddigii maaliyadda la kala diray waa inay shaqadoodii wataan cid ka joojin kartaana ma jirto war gudoomiyuhu wuxuu yiri baarlamaanka madax banaanidiisa waa in la ilaaliyaa oo lugaha iyo faraha lagula jiro lagala baxaa cid kasta ay aaminsanayd inay jirto ku tagrifal awoodeed waa in warbixintan ay tusaale u noqotaa wadankuna waxaa ka jirto kala dambayn iyo sharci iyo dawladnimo mana jirto hay'ad ku tagrifali karta hay'ad kala awoodeeda mudana taasadee runtahay jawaari ay joog la xiligan gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi kismaaye ma ka soo laabtay heshiis ma ka keenay aryaadaha gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir mudane taabid aroos yaab leh oo yaab lahow dhigtay hadda saddex waqtiyaa wax la cunay aasaa dadka qarrari tegay sooriyada mahaas ka dhacdana tusbax iyo cataray aheedaa la yidhi gudoomiyuhu gabartow aroosayana maha ma jooginaa la yidhioo keligiisow arooska dhigtay war arooska waxaa loo bixiyey kulmiye aryaa intuu kulmiye ka ahay lamaanihiyaaba kala maqnaaye war dhadhaabaa arrin yaab lahu ka dhacday laba qoys ayaa gabar iska soo doontay gabadha aabbeed ayaa soo fadhiisa wuxuu yidhi meherkeedu waa 10,000 shiikhii wax nikaaxinaya ayaa yidhi lacagtaas waa badan tahay shiikhow naga dhin war lamadaba dulmiilo ahaayna war ka niinwad intay dulmi ka tahay hunguriyaa jire sidii loo gargartamaya xisaabta 5,000 ay timid odaygii gabadha dhala waa aqbala ayuu yidhi 5,000 laakiin inta aan nikaaxu dhicin halii hormariyo qoladii wiilka ka socota waxay dhaheen meher la hormarinaya weligeen maana arag odaygu gabadha dhalana wuxuu yidhi gabadheeda deen ku qaadan maysaan saasaa lagu kala tegey labadaa qoloba waa qaldanaayeen nimanyo meherka qofka bixinaaya iyo qofka iska leh baa ka heshiin kara waana wiilka iyo gabadha war naf bani aadan ayno lindeensin aan naftay lagaba iga tag amaahdaada maahe mahaas igaarka iyo gabartiyaa ku oomaye war nimayo wiilkii gabadhii iska daba ordayey lana yidhi aroos qaran ayaa loo dhigayaa xaggay ku dambeeyeen waxaa la yidhi hawaalo adduun haadbahaad kiciyo hilaacba hilaac ka hoos yimid mahmahad arbeed may haytay kalaamu naas 3 yawmin hayti allah u naxariistay abwaangaariya wuxuu yidhi markaan dhinto haddaad aas qaran ii samayn doontaan hadda aroos qaran ii dhiga adduunka intaan ku noolahay haddaad ii arxami weyday aakhira haddaan taga miyaan ina adeer dooni waxa aaska qaran loo sameeyey waa jannanadii la qarxiyey hase yeeshee waddadii lagu qarxiyey jannanada qaraxyo badan ayaa ka dhacay kadibkood warnimaya anugu maantay ninka cabdimahad ahaa jaqjaqdiisii waa ka nasto lagu waayo caafimaad qabaan war cabdimahad gaalkacayuu tacsiye u aaday niyo war mawadaadkii gaalkacay lagu qarxiyo xuskiisa ka qayb gala kaasu mahow raba ha ka dhaco qanda weji musmaara leh caad ka rabtirood warkiisa ku falaysa
hadlaysid waraana warka xasan faarax iga daaye madaxweynihii jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo madaxweynaha suudaan cumar xasan albashiir dabayshii waayahan socotay oo degdegaysay oo abi axmed hogaaminayaa saamayn ku yeelatay hadda maanta inta duuleen ay etoobiya dig ka yidhaahdeen war dhowdhowda naga daayo dabayshuba annagayna saamaysay wadahadalkii muddo xakirnaa ee somalilan iyo qoladan anjaarka nahay u dhexaysay hadduu bilaabanayaa baa la yidhi odayga dabayshaa soo gaartay iska dheh odaygu jumhuuriyad dhan buu mas-uul ka yahy nin daweel hayso dawaa loogu daraa ha darsadee warwar ma haysaane maalin dhoweyd madaxweynaha soomaali state waa kii ilmo laanoo dhan eedeeyey hadda warkiisii run buu noqdo hadda jigjiga qaraxyaa lagu qabtaa liid fileerti korlengamow lan welbi filooy war jigjiga waxa taga waa qalbi dhagax maalintuu xirxiraa oo korkiisa dirgax lagu cayaaray maanta ma aha wareegta waa silsiladee adduunyoy waa la leey adduunyoy waaya badan ayaa hore loo yidhi adduunkan intaad dul joogto darajo yaryaraysi male way war guddoomiyihii guud ee ahlusana macalin maxamuud iyo madaxweyne xaaf madaxweyne ku-xigeenka ay ku heshiila yihiinaa la yidhi war madaxweyne ku-xigeenka cusubi waa abwaan waran leh war dhow samareeb waxaa laga dhex raadin oo la sheegay ma runaa mise waa been war madaxweyne ku-xigeenkii puntland iyo madaxweynihii ma heshiiyeen array kuwaas galmudug ay ku darsadeen oo ku daarateen nagala tag war caasimadda waddooyinkeeda ma la nadiifiyey war maxaa kaa qusay adu mirishibiyaad war masaajidka isbaahisiga islaamka waxaa ka furmay baa la yidhi shir soomaaliya iyo sacuudigu ay diinta uga wada hadlayaan war biri waa maalinta musuqmaasuqu war minid aan musuqmaasuqayn nama soo maraba hay taabanin madaxa ka jajabe